ereyga suugaan waa erey hore haddana cusub macno horena wuu lahaa oo Soomaalidii hore ay u taqiinay macno dambana waa yeeshay oo loo balaariyay markii hore wuxuu ku saabsanaa dhulka haddii ay la ku rooyaa doogaada leh ee indhaha u roon ee qurxoon ee xoolaha iyo dadkaba u roon markii biyiga la joogo kadib 1940 markii la soo gaaray goosankii af Soomaaliga ee xamar ka dhisnaa urur aqooneed buu ahaaye ayaa erayga waxay u qaateen erey bixin cusub ayaa loo xambaariyay markaas waxaa loo bixiyay waxyaalaha literatura ama literature ama al-adab carabiga looga yaqaan oo ah tix iyo tiraab habaysan oo hagaagsan oo si fiican loo tiriyay oo quluud damba leh oo loogu talagalay qofka in lagu saameeyo ama ay saameyn ku yeelato dabadeedna waxa laga rabo ama uu aaminsanaado ama uu jeclaysto ama uu u bogo ama uu madaxa u raaxo suugaantu marka waxay u qaybsan tahay Soomaalida markii la yiraahdo maansada sheeko xariirada mahmaahda hal xiraaraha iyo wax alla wixii soo gala oo macnaha leh maaragtay shiiqsi dambe iyo quluud dambe oo si fiican u tirsan hadday ay tahay tix haddii ay tiraab tahana si fiican u qoran ayay leedahay qaybaha maansadu u qaybsanto waa gabay waa geeraar waa jiifto markaas waxaa intaas waa intii ragga hore oo Soomaaliyeed oo maansayahanada ahaa ay wax ku tirin jireen saddexdaas ay ahaayeen waxaa soo raaca heesaha dhaqanka oo mid hawleed iyo mid cayaareed u kala baxda iyaduna sida heesta geela heesta kabdaha heesta waxaraha heesta ariga heesta shubaasha marka ceelka la joogo geela looda iyo ariga guud ahaan intaas oo wax alla waxay qabanayaan markay wax qabanayaan Soomaalidu waxay u lahaayeen hees bay u lahaayeen heestaas maxaa loo tirinayaa waxa loo tirinayaa in la isku dhaafsiiyo canaabta iyo shaqada badan oo macnaha uu qofku qabanayo si uu u dareemin ayuu u sameyn jiray maansaduna kaalin weyn ayay ku lahayd mar walba nolosha Soomaalida sidaan soo sheegay wax alla wixii la qabanayo oo dhan aqoonta xaggeeda xataa gabayga laftiisa yani aqoonta ayuu mataqaana qayb weyn ka qaadan jiray ninka gabyaaga ahay wuxuu ahaa nin la xurmeeyo oo haddii alla kugu roon yahay loo istaago oo shirka markuu yimaado ugaaska ama boqorka reerka kaliya ayaa ka horeyn jiray mararka qaarkoodna waxay booskaa labaad ku dagaalami jireen ma sheekha horeeya mise gabyaaga horeeya ayay ahayd markaa sidaas qiimo weyn ay maansadu ugu lahayd Soomaalida waa wax ku talaalan ilaa maantana waa sidii oo kale inkastoo af Soomaaliga uu isbedelay oo uu jircay oo haddii alla ku roon yara duuqay haddana Soomaalidu maansada mar walba ama hees ha ahaato ama gabay ha ahaatee ama ha fahamto ama yeesa fahamsanaane waa jeceshahay waxaa la yidhaahdaa Soomaalida waxaa kiciya maansada kicisa maansadaana fadhiisisa oo midalan garta ayay ku naqan jireen markay garta naqayaan ama ninku naqanayo oo geedka joogo doodiisa gabayga iyuu ku xoojin jiray waxna waa la isugu sheegaa haddii alla ku roon yahay sidaa ayay ugu talaaleen nolosha Soomaalida qayb kasta iyo dhinac kasta oo ay lahayd maxaa marka arrimaha ay u badnayd maansada Soomaalidu iyadoo guud ahaan sidaas ayaa haddana waxaa jira arrimo la tilmaami karo oo ay maansadu u badnayd oo maansayahanadu ay haddii alla ku roon ku soo qaadi jireen waxaa ka mid ah guubaabada marka aad col duulinayso oo ama ay col duulinayaan oo qolo kale lagu duulinayo waxaa ka mid ah diradiraha laba qof ama isku dir ama laba qabiil ama laba tol ama laba dowlado yani waa diradiraha gabayga yani ma soo noqdaa la yidhahdaa qofka gabayga fiican haddii alla ku roon yahay lagu diro kow waxaa ka mid ah oo ujeedooyinka maansada waano iyo haddii alla ku roon yahay talasiin baa ka mid ah waxaa ka mid ah cayda waa la isku caayaa oo weliba la isuguma dulqaato cayda tiraabka ah oo caadiga ah waa la isugu dulqaataa laakiin midda gabayga ama maansada ku timaada geeri baa laga xigi jiray
waxaa ka mid a ammaanta ama gabar baa ammaanaysa ama faras ama haddii alla kuu roon yahay geel iyo adigu ciddaa rabtaba ammaan gabaygu markii wax lagu ammaano aad iyo aad buu ugu qiimo badan yahay waxaasina yani waa hadduu qof yahayna waa ku farxaa haddii uu xoolo yahayna waa la tixraacaayo waa kii hebel sidaa yidhi ayaa la yidhaahdaa gabayga waa laysku wacdiyaayo haddii alla kuu roon masafooyin baa jira laysku wacdiyo aadan aqoon laawo oo kale sidii tii xaaji cali majaarteen oo kale jacaylka ayaa looga gabyaa gabayga maansada ama heesta ha ahaato wax walba ha ahaatee jacaylka ayaa lagu soo qaadaa halxiraalaha waa laysku halxiraalayaa gabayga xigmad ayaa loo tiriyaa yani qof waaye aragoo gabyaa waaye aragii inuu haddii alla kuu ronya gabay wada xigmada tiriyo ayaa suurowdo uu kaga hadlayo nolosha iyo adduunka iyo xaaladda lagu sugan yahay iyo arrimahaas uu kaga hadlay wixii lasoo maray iyo kow gabayga waxaa loo tiriyaa oo kale fariin baa qof loogu dhiibtaayo qof kale loogu geeyaayo hebel uga gee baa la yidhaahdaa gabayga waa laysku habaaraa habaarka waana la isugu duceeyaa waa laysku canaantaayoo gabyaagu wiilkiisa iyo xaaskiisa iyo haddii alla kuu roon yahay ayuu ku canaanan karaa oo iyaduna waa ujeedooyinka maansada soomaalida ayay ka mid tahay haddii marka aan tusaaleeyo ujeedooyinka maansada qaar ka mid ah waxaad soo qaadataa guubaabo sayid maxamed cabdilla xasan uu lahaa oo uu daraawiish duulaysa oo uu meel ku duulinayay niman godob ka qabay oo ragna ka laayay xoolana ka dhacay ayuu ku duulinayay markaasuu wuxuu yidhi gabaygaas oo gubaabada ah haddaan qayb ka soo qaado wariyaa duub caddii garanhayoo dib u qamuuyeysan wariyaa daabaduu fuuli jiray darabka saaraya wariyaa duhurka maanta torow ila dareeraya yay dani ka haysaa raggii doola lagu laayay nimankii daldale waafir sow loogu duri maayo dudihii xirsiyahaa ma waan loo dubnaxa haynin maxaa loo dangiigaa maxaa dadabta loo seexan dugsiyada maxaa loo hurdaa dacaska qaadooyin sow kuma dadootaan ilmada dililqalaynaysa wariyaa dumarka aad guursateen sow dumaal ma aha wuxuu leeyahay dumarka aad qabtaan oo raggii laga laayay meydnaan u aarayn oo aad dumarkoodii dumaasheen ee daraawiishta ahaa wariyaa dumarka aad guursateen sow dumaal ma aha daa'ima agoomeedna sow daaha kama buuxdo wariyaa maad isdooxdaan ilaah deeqi waa badan wariyaa maad isdooxdaan caraa lala dilaacay wariyaa maad isdooxdaan caraa lala dilaacay u imow xikmadda gabay kasta xikmadii waa ku jirtaa oo waa ka buuxdaa laakiin waxaan kaa soo qaadahayaa tii cabdulaahi muuse ninkii la oran jiray istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaanee tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidaxay hadday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseen bu jacaylka ka soo qaad geeluba raago ogaas baa yidhi baa layidhi geeluba ogaasooy hadduu ayada miranayo abeerkiisa naaxiyo hadduu aaranku iswaayo isaguba ma kala aamusee waysu ololaaye haddaan ina adeeray ku iri sowma urugootid waxaa ka soo qadaa calaacalka oo gabayada aad iyo aad ninka gabyaa uu u calaacalo ama haddii arrin baa dhaaftay soconku dhaaftay ama waa laga dhintay oo xaaskiisii ama wiilkiisii ama nin boqorahoo ugaasa dhintay oo ama nin sheekha ama aduu qof yani bulshada aad iyo aad ugu fiicnaa ayaa dhintay markaasaa loo calaacalaayo oo loo baroor diiqaana laakiin tani waa calaacal keliya oo ninkaa naftiisa ayuu u calaacalayo wuxuu yihi naftu waa maqnow amase waa mahad ku noolo waa miiska aanahay waa maanta saanahay naftu waa maqnow amase waa mahad ku noolo waa miiska aanahay haddii mid u dhexeeyay mid kaloo calacalay wuxuu yidhi eebowgayiga aakhiro iyo dunida guudkeeda midunbay galladii noo ahayd inaadna geysaayo goodaada dhexe waa halkaan garabta joognaayay kow murti u soo noqo haddana xikmaddii waa la mid timacaddaa wuxuu yidhi garbaduub haddii loo xirood gaarna ka ahaato gacantii nin liihigoynayaa waa gomodantaaye nin walaalki geed ugu jiraa geesi noqon waaye waa lagu eed sheegtaa gabayga oo eed sheegad jaamacadda yuurad baa wuxuu yidhi nin walaalkii ii hiili yidhi hoog allaa badayee heeryada isaaraanay tolkay hagartii weeyaane intii lay hoggaan bari lahaa waa harjadayaaye ninba hawshii waa haysataa
ninbanaha ushi waa haysataa haatan dabadeeda kaasina waa jaamacadda qolo uu ka rabay hiil oo ay tol ahaayeen ka waayey kow bulshada lagu canaantaa oo gabaygu canaan buu leeyahay ama guwaabo iyadoo ah ayaa haddana canaani ku jirtaayo xaaji aadan afqalooco soomaalidii rabay inay gobonnimo doonka u kacaan oo u tafaxaytaan oo xoolahooda iyo xoogooda ku bixiyaan ayuu ka waayay isagoo markaa ceerigaabo jooga markaasuu yidhi gabay dheer buu wuxuu ku soo gabagabeeyey dafdaf iyo kuleyl waxaan la imid dacastay laabtii waxay hadduu idin soo dego oo la idin deeqsiiyo oo nebigii soo daahiraan idin daweynayne dafdaf iyo kuleyl waxaan la imi dacastay laabtii waxay hadduu idin soo dego oo la idin deeqsiiyo oo nebigii soo daahiraan idin daweeyeene adinkiiyo dinaduhuba horow damac xumaateene midna darajo kuma haysataan labada daarood ee gobonnimo sadareel lagama helo daar adoo galaya haddaad doono leedahay naftaa diiq la geliyaa waa mur iyo daybaaq waxaa dib ugu aydaaya marse haddaan waxaan doonayey iyo dowladnimo waayey dantay weeye inaan aamusaa eega dabadeede dulligaa ku jira noloshu waa idinku deelqaafa waxaan u dambaysiinayaa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta soomaalida iyo suugaanta caalamiga labadaba waa qaybta la yidhaahdo mahmaahda oo maxay tahay waa ereyo kooban oo xambaarsan murti oo ka tarjama ama had iyo jeer haddii alla kuu roon yahay laga dareemo waayo aragnimada ay bulshadaasi nolosha ka heshay marka sidee ku dhalataa waxay ku dhalataa nin baa hadlaaya meel buu ka hadlahayaa ereyada uu sheegaya qaar ka mid ahaa lagu dhagaa oo xikmad ah markaasaa hadhow lagu mahmaaha laakiin badanaa sida gabayga iyo geeraarka iyo lama kala sheegto oo lama yidhaahdo anaa tiriye iyo anaa sameeyey maxaa yeelay sideedaba qasdi ahaan looma tiriye waa iska timaadaa mahmaahdu markaasi waxay tahay dhaxal bulsho sideedaba oo inkastoo qaar la yaqaan maalan waxaa ka mid a qaarka la yaqaan raggii waaweynaa baa laga wariyaa mid maalan wiilwaal oo kale rag hooyadiina u hayey oo walaalow wax uu ku dhaamo waan waayey wiilwaal baa yidhi mahmaha waa la yaqaanaa aadan gale la yihahdaa wuxuu yidhi markaan tabar hayey tare ma hayn haddoo aan tara hayana tabar ma hayo sheekay leedahay iyaduna aadan dirir wuxuu yidhi sow sagaara ima barato sayid maxamed baa wuxuu yidhi wax fudud oo aan farda ahayn baa nacay raaga ugaas baa wuxuu yidhi waa yeel ha soocina waxgarad sooca kuwaas waa kuwa la yaqaan laakiin inta badan mahmaada cidna ma garanayso ciddii tiri mararka qaarkood waxay leedahay sida gabayga waxay leedahay qaafiyad maxaa ka mid ah erayna la kala oran og eebana la kala bari og oo alif ku socda ba'da haddaan waa baahanahay baktiga looma cuno haddii alla kuu roon yahay geel waa geel wax intii goysaana waa geel haddii alla kuu roon yahay ta'da markaa timaado tol waa tolane waa mahmaaha iyaduna tala adaa ku noole iyadu kuguma yani mahmaahdu markii la sameeyey sidaan rumaysnahay waxay lahayd markii laga maqlay ninkii laga maqlay ama qofkii laga maqlay waxay lahayd haddii alla kuu roon yahay qaafiyad laakiin waqtiga socodka waqtiga ayaa lagu iloobay kadib macnihii baa la iska qaatay markaa qaafiyad markaad qaafiyad la-aan ku sheegto mahmaahda cid kula yaabaysaa ma jirto waad ku sheegi karaysaa